ومناسبة قف كسوق قيب قلا رنتي وفرحات آدو وين دريميو مدة رنتي أنا جاي جود بيسي وكالة دنا سوق قلو سيستم ماذا رنتي أنا كسو عرقناي نلوجور بحيي وأداجي الصومالي لان وهاي مركو كجود بي قبل كأي نكون والله هيبا حيالها سوق الواحد يلي الدولة ده أجنبي جاء لوجو تيرسلان تروي دي حركة كتر إنما مدحوين هنا جوب شوك كي هاي ما رأيها وكالة ده بيها إيه هرجيسة agaasimayaasha injineerada farsamayaqaanada iyo shaqaalaha guud ahaan wakaaladda iyo saaxiibadeeda wasiirada ah ee saaka booqashada kuwada ugu wada dhimid wakaaladda dhammaantiin baa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii farxad bay noo tahay inaanu munaasabadan ka soo qayb galno waa munaasabad qof kastoo ka soo qayb gala runtii uu farxad aad u weyn dareemayo waa munaasabad aynu ku eegayno ama aan markhaati kaga dhahay wakaaladda biyaha ee Hargeysa horumarkay gaadhay iyo rajada runtii ay dadweynaha reer Hargeysa ka qabi karaan biyo ballaarinta muddada dheer ay sugayeen ama in badan oo ka mid ay horeba u heleen waxa runtii wax aad iyo aad loogu farxaa ah xafiisyada wakaaladda aanu soo eegnay saaka hadday tahay shaybaarka oo adeegii Somaliland uu hayay marka uu ka gudbay gobolka aynu ku noolahay baa runtii wax badan ka qabta xagga howlaha shaybaarka iyo biyayaasha lagu isticmaalo meelo badan oo gobolka ka ah sida uu ilaalin lahayn waa tallaabo dheer oo marka runtii ay qaaday wakaaladdu inay ku filaato nadaafadda biyaha dalka ilaalinteeda iyo gobolka guud ahaan waxa kaloo iyana waxa aad loogu farxaa ah sistamada runtii aanu ku soo aragnay na looga warbixiyey xafiiska ICT-ga ee maxaa ku raada gacanta ku haya sistamada wakaaladdu ku shaqeyso iyadoo runtii waxa weeye wax iyaduna aan u aragnay inay horumar aad u weyn ay wakaaladdu ku tallaabsatay runtii xafiisyadaanu soo marray wakaaladda dhammaantood waan ku hambalyeynaya maareeyaha iyo shaqaalaha guud ahaanba heerka ay gaarsiiyeen iyo sistamada ay u dhiseen iyo qaabka ay u wada shaqaynayaan intaba waa ku hambalyeynayna daarinta halkaa kaga gudbo xagga ceelasha daaru gudbo iyo maxaan ku idhahdaa biyo ballaarinta iyo isku xirkooda toddobada ceele runtii aynu maanta ka sheekaynayna ee 6 ka mid ah la qoday intii xukuumaddani jirtay iyo isku xirkooda 17 kilomitir oo bayba iyo 14 kilomitir oo maxaan ku dhahay xagga korontada ah waa wax aad iyo waa hawl aad iyo aad u ballaaran weey lacagta ku baxday imaka warbixintana lagu siinaya 4 milyan oo dollarna aynu inaguuni isku tashigeena ku keenay iyaduna waxa weeye waa wax aad iyo aad loo mahadiyo intii waxyaalahaas oo kale waa waxay leeyihiin dawladaha ajnabiga ah loogu tiirsanaan jiray weey horumarka ay Somaliland gaadhay ee lagu majeerto ee caalamka oo dhan kaga marxaati furo waxa kamid ah iyadoo cidina caawin bay Somaliland halka gaadhay marxaati waxay ka tahay arintani inay taas maxaan ku raahdaa arrimaha Somaliland lagu majeerto inay qayb kamid tahay saakana aynu marxaati uga dhahay wakaaladda inay ku soo kordhisay iyada iyo xukuumadda guud ahaan madaxweynuhu hormood u yahayba in lagu soo kordhiyay waxqabad aad u muuqda lagu soo kordhiyay dalka iyo wakaaladda gaar ahaanba aad iyo aad baan u hambalyeeynaa aad iyo aad baan runtii uga mahadnaqaynaa maareeyaha iyo farsamayaqaanada iyo agaasimayaasha iyo maxaan ku dhahay shaqaalaha guud ahaanba hawsha ay hayaan wuxuun baynu leenahay dawa halkaasoo aynu ka sii wadno oo inta yara inoo harsanee la tirinayo leeyay maxaan ku dhahaa dee 400 mitir iyo haddaynu 17 kilomitir barayni oo imika waxa la sheegayaa uu mitir haba yahay mitiradaasina de waxay noqonayaan wax de maalmo lagu dhameeyaa bay noqon doonaan insha Allah maalinta aynu de xariga ka jarayna madaxweynuhuna goobjooga ka yahay ayaynu isugu iman doonaa inagoo farxad tan ka weyn muujinay laakiin saaka waxaanu marxaati uga nahay in alaabtii ay wakaaladdu u baahnayd ee arrimaha uga baahnayd oo dhan intoodii ugu dambeysana saaka ayno taalo ay soo gaadhay rakibaadoodii un daay oo yana maalmo qaadanaysa unay tahay waxa la sugaa
waxaan runtii aanuna hambalyaynayaa maareeyaha iyo shaqaalaha guud ahaanba aan ku hambalyaynayaa hawsha qiimaha leh ee ay qabteen annaguna runtii waxaanu ka markhaatinahay saaka in horumar aad u weyn ay wakaaladdu ku tallaabsatay muddaa runtii aniga igu dambaysay wakaaladdan aan soo galo saaka waxaad mooddaa inaan dee goobaan dalkeennaba ahayn inaan dhex taagnahay baad runtii mooddaa marka waa wax aad iyo aad loogu farxo marka ay qurux sidaasoo kale ay ka muuqato markay adeegyo caynkaasoo kale qabashadeeda iyo sida loo fududeeyey ay ka muuqdaan marka aynu halkaynu higsanayno iyo taargetkii inoo yaalay qabsoomidiisu ma garanaysaa uu durba inoo muuqdaynu maxaan ku dhahdaa joogno halkii aynu dee ku daafuri lahayn ba aynu taagannahay waa wax aad iyo aad ilaahay looga mahadnaqa weeye marka allana waa uga mahadnaqaynaa maxaan ku dhaha wakaaladda iyo farsamayaqaanadeeda iyo isku tashiga aynu keennay ee aynu inagu ma garanaysaa hawlaheenna hadday dhaqaalo tahay iyo hadday farsamo tahay iyo hadday aqoon tahayba aynu inagu qabsannayna runtii wax aad iyo aad aanu idinkuna hambalyeynayno idinkana mahadnaqayna ayay noqonaysaa marka halkaasoo aa ka sii wadaan un baanu dee idinku boorinaynaa insha allahu oo horumar badan ku sii tallaabsataan wakaaladaha biyaha ee kale ee somalilandna aqoonta dee aa u gudbisaan magaalooyin badan baynu runtii ayaan halkaa gaarsiisnayn marka wakaaladda biyaha ee hargeysa halkaa ay gaadhay maanta runtii waxaanu dee laga rajaynayaa inay wakaaladaha biyaha ee magaaladana ee waddankana wixii ay ku tari karto ku tarto si ay aqoonta iyo maxaan ku dhahay isku tashiga iyo sistamada ay abuurtay ugu gudbin karto oo dalkeennuba guud ahaan uu ku hana qaado ma garanaysaa ay ka hana qaadaan horumar isu dheeli tiran oo gobollada oo dhani aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu